بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadceliyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan hadda ka hor kan baaq uga soo jeediyay jawaab caqiibo leh oo aan ka helay ayaan aad iyo aad jeclahay inaan uga mahadceliyo baaqigii hore dhalinyarada kuwajahana wuxuu ahaa in aynu isu kaashano aynu dhammaanteenba u kacno sidii loo cirib tiri lahaa dhaqanka la yidhaaha ibsooca. waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhammaan qaybaha Soomaalida ka kala tirsan dunida oo dhanna ku kala filaqsan kuwa waddankii jooga haddii ay noqoto iyo haddii ay qurbaha noqotaba inay ila soo xiriireen aad iyo aad arrintaasoo run ahaantii noo farax gelisay haddii aanu nahay ururka cadaaladda iyo sinaanta Soomaaliyeed sime. waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waana idinka mahad celinaynaa xiriirka aad nala soo samayseen iyo sida aad noola qaadateen in loo baahan yahay in laga xiriir tiro dhaqanka la yidhaaha ibsooca ummadda Soomaaliyeed. waxaan jeclahay haddaba intaa ka bacdi inaan halka kan uga diro baaq waalidiinta Soomaaliyeed maanta. waxaynu ognahay waalidiintu waa gacanta barbaarisa ee mas-uulka ka ah hoyga ay kusoo barbaaraan ubadka Soomaaliyeed. sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa oo baaq ugu soo jeedinayaa waalidiinta Soomaaliyeed anigoo sharaf weyn iyo qadarin u haya ilaahay inuu uga baryayo inuu cimrigooda u barakeeyo dad iyo dunyo waxay ay haystaan inay ku barbaariyaan ubadka yaryar ay gacanta ku hayaan in dhaqanka la yidhahdo haybsooc uu yahay dhaqan ee waqtigii jaahiliyadii ummadda Soomaalida si sibiqa u galay una baahan maanta in la joojiyo. joojintiisa iyo inaan cirib tirno dhaqankaas cid wal oo caqli u saaxiib waxay isku raacsan tahay inuu muhiimad weyn ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed haddii ay tahay dhinaca adduunyada iyo aakhiraba. waxaynu ognahay xaqiraad qof qalbigiisa ay ku jirtaa oo aaminsan qof walaalkii oo muslim inuu ka hooseeyo inuu kala kulmayo ilaahay agtiisa ciqaab adag oo su-aal adag oo aanu jawaabteeda ahayn ilaahay hortiisa lagu weydiin doono maalinta qiyaame. waxaynu ognahay adduunyada haddii aan cadaaladi jirin in aanay nolosha caadiga ah sax noqon karin ama sidii loogu talagalay u socon karin. ummadi horumar ma gaari karto, waxba ma qabsan karto, nabad ma heli karto inta dulmi jiro. dunida oo dhan waxay isku waafaqsan tahay diin wal iyo ummad wal iyo dhaqan waliba oo bini aadamnimadu ay basharka tusaysaa in cadaaladdu ay wanaagsan tahay. islaamkuna arrintaa aad iyo aad buu xoojiyey. in badan baynu ku aragnay aayaadka qur-aanka iyo nusuusta inuu ilaahay addoomihiisa u dardaarayo xaqa iyo cadaaladda inay ilaaliyaan, dulmigana ay kasoo maaragtaan ay ka foojignaadaan. waxaan haddaba leeyahay waalidka Soomaaliyeed bilaahi calaykum maanta waxaanu joognaa xilligii aad waqtigii ama xilligii aad ku barbaarin lahaydeen ubadkiina in ummadda Soomaalidu ay tahay mid qura isla markaana aan loo baahnayn in looga sheekeeyo carruurta sheekooyinkii khuraafaadka ahaa ee markay yaryar yihiin lagu ababin jiray ee ahaa waxaa jira waxa la yidhaahdo nasabiyaaj. waxaynu ognahay in qof kasta oo yar oo Soomaaliya 6 sano markuu gaaro uu og yahay isla markaana xataa macnaheedu fahamsan yahay waxa la yidhaahdo nasabiyaaj. taas waxay ku tusinaysaa in waqti fara badan lagu bixiyay ubadka yaryar inta
marka ay yaryar yihiin in la fahamsiiyo sheekooyinka khuraafaadka ah iyo fikirka qaldan ee ku saabsan dhaqanka haybsooco. walaalayaal billaahi calaykum aynu joojinna dulmigan iyo xaqdarrada. waa ceeb iyo xadgudub isdul saaran waxaynu maalin walba kula kacnaa bulsho ballaaran oo walaalaheena Soomaaliya waynu wadaagna diin, dhaqan, luqad, dhalasho, midab. waxbaan iga kusii dheeraanay. waxaan leeyahay taageerada shacbiga Soomaaliyeed muhiim bay u tahay ururka cadaaladda iyo sinaanta Soomaaliyeed simin culimo waxgarad waayeel dhalinyaro dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed inay ururkan taageeraan oo ay garab istaagaan oo hal qodob baan wadnaa halka qodob aad nagu taageertaan aad iyo aad baan ugu baahannahay. baahidaasina waa mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan u baahantay waayo waxaynu daaweynaynaa cudur ummadda Soomaaliyeed waqti dheer hayay oo haddii aynaan ka daawoomin aynaan waxba qabsan karin aakhiriya adduunya baynu khatar nolosheenu ay wajahayso. waxaan warkayga uga baxayaa ballanteenu waa intaan ilmaha yare maanta dhashay ee dhabta hooyadii ku fadhiya caqliyaysan inaynu dhaqankaa maaragtaanay ka taqalusno oo cirib tirno si uu uga badbaado murugadii iyo xaqdarradii iyo dulmigii ay waalidkii la soo kulmi jireen. waxaynu ognahay in qof kasta oo barbaaray oo weynaaday oo waqtigiisu ku simay oo u dhashay beelaha Soomaaliyeed haybtooda lagu dhibaateeya uu noloshiisa oo dhan arkaya dulmi iyo xaqdarro. ilaahay baan idinku dhaashay ubadka yaryar ee farxadda waalidkooda iminka la wadaagaya ee dhabtii hooyadood saaran ee aan ka garanayn dunidan waxba inta aanay garaadsan ka hor aynu baabina dhaqanka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.